Ergadan oo qayb ka ah shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana soo dhaweyntooda ka qayb qaatay xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug waxgaradka ergooyinka ka qayb galaya shirka oo hore ugu sugnaa magaalada Dhuusamareeb iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugaas Cabdidaahir Ugaas Nuur oo ka mid ah dadka soo dhaweynayay ergadani ayaa waxa uu sheegay in gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan ergadani. Waxaad ku soo dhawaanaysaan gacmo furan, farxad iyo rayn Dhuusamareeb oo nabada oo idin rabta oo idin sugaysay ayaan idinku soo dhawaynaynaa insha Allah taala. waxa taagan halkan garabkayga waa wafdigii guddigii dib u heshiisiinta qaranka oo hawshan abaabulayay oo waday. Imaam Cumar Macalin Abshir oo hogaaminaya ergadan maanta soo gaartay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in madaxda qaranka ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo uu uga mahad celinayo halka ay soo gaarsiiyeen howlaha Galmudug. waxaan u mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyay sidii ummadda reer Galmudug, sidii ummadda Soomaaliyeed, sidii ma garanaysaa meeshaan la isku imaan lahaa. Galmudug 3 safar ayay soo gashay. safarkii koobaad 2007 Galmudug la sameeyay, gaalkacyaa lagu sameeyay, xarunta waxa lagu sameeyay gobolka Mudug. safarkii labaadna 2015 Galmudug la sameeyay, waxaana lagu sameeyay magaalada Cayaada lagu dhisay Galmudug. maantana Galmudugtii saddexaad ay ku socotaa, waxaana la rabaa hadii Ilaahay qadaro in lagu dhiso maamulkaas oo caasimadda Galmudug ka dhacaya. taasi waxaan rabaa marka inaan aad ugu mahad celiyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyay. Cabdi Xaaji oo xubin ka ah guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ayaa waxa uu soo dhaweeyay ergadan waxa uuna sheegay in ay ka mid yihiin dadka ugu dambeeya oo soo gaaray magaalada Dhuusamareeb si shirka ay kaga qayb galaan. maanta idinka u dambeeya waana ku sharfantihiin, annaguna waa ku faraxsannahay. waa la idin sugahayay. dad baa yimid 15 bishii la soo dhaafay, ayagana xaal baa la siinayaa dulqaadadka ay muujiyeen iyo inta idin sugeen inaan la idinka maarmin waa ogaateen. marka sidaa awgeed imaasho wanaagsan Dhuusamareeb oo nabada, reer Dhuusamareebeed oo martigelin la diyaar ah, ayagoo wada jir ah sidana loo soo dhaweeyay, idinkana la idin soo dhawaynayo iyo nabadda ka jirta iyo walaaltinimada ka jirta Galmudug in ay dhabbacad marto ayaa heshiis lagu yahay.